السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي qaaliga meel kasta joogtaan ku soo dhawaada channelkeena Jumala Channel. marka hore haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar kadibna gambarada furo si aysan ku dhaafin muuqaalada aan soo gelin doono insha Allah. maanta waxaa wadnaa waxyaabihii aan sameeyay qaybtii labaad inaan idin la wadaago waxyaabihii aan sameeyay markaan dhahayo wax badan oo sameeyay oo idin la wadaago markaan sameeyay jirto iyo waxyaabo inaan markaa sameeyay inaan duubo oo idin tusiyo ay ii suurtagali weysay kadib markii aan dhameeyay aan muuqaalka sameeyay marka insha Allah inaan idin soo gudbiyaan rabaa si aad uga faa'iideysatiin haddii aad u baahan tihiin commentiga ugu dhaafo oo idin soo gelin doona insha Allah. waxaa kamid ah geedkan aad u jeedaan hadeertaan waa ubax yar oo qurux badan miiska saaranay haddii aad rabto waxa saaranaysaa miiska oo fadhiga haddii rabto miiska cuntada daartid komadiinka tawleedka meel oo diida ma leh maasha Allah kaaliska arag waaye loof yar iyo wax iswato waaye kulli waxaan ka sameeyay baakad dunta farshaxanka iyo waxyaabo birqirqa oo dharka lagu qurxiyo maasha Allah wax yar oo qurux badan oo soo baxay kana waa asagiyo kale laakiin nashqad yar oo ka duwan waaye kii hore loof oo ahay kana waxa waaye 3 gees sambuus camal baakadan ka sameeyay kulli waa ujeedin baakadaas dheer oo waxa ku dhex jiro waxa waaye baakad sharoobo ishaak fiilafeero waaye waxyaabahan kale oo meesha ka soo taagan duntii farshaxanka waaye kaasne labada dhinac isku mid oo qiyaasa ujeedin boo meel alaal meesha rabto asaar kartaa madiidayo wax yar oo qurux badan waaye waxyaabaha guriga ku quruxsanaysid gacantaada ku sameyso maasha Allah. muuqaalkan saa u sameeyay u baahantiin waa idin soo gelinaa insha Allah. sidoo kale waxyaabaha aan sameeyay waxaa kamid ah waxaan asagana waa ubax waa ka duwan yahay kan waxaan ka sameeyay ishaak caaga oo one time use ka biyaha lagu cabo iyo waxaan ka sameeyay aarada yarta oo dharka la saaro sidoo kale kan natiishkan gurutay asagana waa ujeedin dun iyo waxaan ka sameeyay caagadaha yararka one time use ka rinjiyaan ku buufiyay marka kaas kale dunaan ku wareejiyay saa ujeedin bo midkan kale waxa ku sameeyay duntii aan ku wareejiyay dun cad iyo madow ubax yar oo madow ku dhijiyay kadibna geed yar oo magaciisa ku qoran yahay dhab ku siistay tiishkan ku rutay miiska qadadan saartay maasha Allah quruxda ku soo baxay kaaliska arag ubax yar oo gacantaada ku sameystay gurigaada ku quruxsan maxaa ka fiican maasha Allah. haye maxaa kale oo sameeyay idin wadaagaya insha Allah wax badan waxyaabahan oo dhan insha Allah waa idin soo gelin doona haddii Ilaahay awood la ii qadaro. sidoo kale waxyaabaha aan sameeyay waxaa kamid ah geedahan oo ayagana darbiga lagu dhijinayo ayagana sidoo kale kartoomo iyo waxaan ka sameeyay dunta farshaxanka iyo kuul saa ujeedaabo darbiga ku dhijisanay maasha Allah qurux waa ujeedin dun cadaan iyo cagaar bibiye cagaar tiq ah iyo waxaan ka sameeyay kuul qaybta dambana ujeedin baakad waaye kartoon yacni marka darbiga ku dhijinay maasha Allah qurux kali waaye laba nooc aan ka sameeyay asagana noocan oo wareega oo iyo waxaan ka sameeyay nooc kale oo asagana 4 gees aan ka sameeyay maasha Allah burush yarna oo sameeyay oo qurux badan yahay asagana darbiga ku dhijinay kaaliska arag qurux ku soo baxaya waa ujeedin marka darbiga lagu dhijiyo ka sii qurux badan kan kalena waa kana asigana waxa waaye 3 gees may 4 gees aan dhilaha 4 gees waa kan nashqad kale waa asagana buntana kale noocan ka dhigay nashqadana waa ka duway laakiin isku wax la ka sameeyay baakad asagana ka sameeyay iyo kuusha iyo dunta farshaxanka ujeedin gadaashiisa dambo marka maasha Allah kaaliska arag asagana darbiga ku dhigsanaysa qurux waa ujeedin marka waxyaabahan oo dhan waxa wax iska easy oo adiga aad samaysan kartid wax dhibada maahan dabadiisa dambe waa kana baakad waaye wajigiisa horena waa kaas aad u qurux badan yahay kan kalena waa kaas asagana baakad waaye. sidoo kale waxyaabaha aan sameeyay waxaa kamid ah geedkan asagana kuraasta la saarto duntaan ka sameeyay laba kalaraan ka soo dhiisa ujeedaanbo waxa waaye geed yar oo kuraasta lagu quruxsado ama wasaqda looga ilaaliyo meesha rabta dhigi kartaa kuraasta meesha suxul saarka dhigi kartaa hadda rabto meesha caadiga oo lagu fariisanayo dhigi kartaa meel oo diidayo malahan
meeshaasna waa saaran kartaa nooca rabtaa u saaran kartaa saana oo dhigi kartaa sida kalena waa u gadin kartaa asagana ma idin la wadaagin waxyaabaha aan sameeyay kamid yahay laakiin insha Allah waxaan sameeynaa waa idin soo gelin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo saas ku soo baxaya oo qurxan yahay maasha Allah ambirka kursigaada ku xiran tahay markasto marka dhinaca rabtana waa u saaran kartaa maasha Allah laba kalar oo maasha Allah waa ka sameeyay basali iyo waxaan ka soo biifiyol aad u qurux badan yahay maasha Allah sidoo kale toodayna waxyaabaha aan sameeyay waxa kamid ah koofiyadani kabaheeda iyadana idin wadaagin insha Allah waa soo gelin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo sidoo kale dunta waxaan ka sameeyay masaasadaha galka la geliyo waxaan ka sameeyay laba kalar sidoo kale waxyaabaha dunta ka sameeyay waxa kamid ah buraashada geedka la geliyo asagana sidee ilmaha waa ku qaadan karaan waana ku xafidayaan buraashada marka dhaceys maasha Allah sidoo kale kitaabadan quraanka galan u sameeyay iyagana waa la qurxiyay ilmahana waa ku xafidaa gacmaha dhididka ilmaha gacmaha ka dhidido kaleetood ama kitaabada ilmaha xajir isla markii oo xafidi karin oo kitaabka jarjaraayo oo u xafida maasha Allah wuuna qurux badan yahay dhowr nashqada ka sameeyay ilmo kaliya ma hata dadka waaweyn isticmaali karo waxa waay gal oo kitaabkan aad u qurxinayo kitaabkan ilaalinayo dhowr xaba ka sameeyay asagana insha Allah waa idin soo gelinaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan kaloo suubiyay geedahan ayagana lagu shubto qudaarta fruitka cambaha iyo waxa ku shubanaysaa ismaandheeska iyo tufaaxa iyo canabka iyo qudaarta miiska saaran hadda rabto macmacaan ku shubanay xanjada iyo nanac iyo shukulaatada miiska qaadada saaran wuxuu diidaa male maasha Allah kan waa weyn yahay dhexdiisana waa fidsan yahay waxaan ka sameeyay sagan qoryaha jalaatada rinji blue oo ku buufiyay kadibna waxaan mariyay rinjiga oo cijiyaha la marsado laba kalar jaale iyo bisali aan ka mariyay oo jeedin saan u yeelaa qaabkiisa kanna waa ka yaryahay asagana waxa waaye waxoogaa yar kala nashqad weyn kan dhexdiisa gud waaye kan laakiin rinji waxa uu marin rinjiga cijiyaha bis ay mariyay macnaha kii kale kumaan buufin oo jeedin rinjiga barbaraqa cijiyaha la marsado iyo guluusta dharka lagu qurxiyo aan ku dhajiyay maasha Allah kan dhexdiisa gud waaye kan kalena wuu fidsan yahay kana xogaa yar yar kana weyn kan dhexdiisa waa fidsan yahay jeedin hadda gacanteeda galiye xitaa waxa waa soo celinaa oo jeedin laakiin qaybtan dambe uu ka godan yahay sida kaas oo afka hore ugu godan yahay kan qaybta dambe uu ka godan yahay kanne dhexdu ka godan yahay waa u jeedin qaybta dambena waa ka salaaxan yahay isaga dhigan yahay maasha Allah labadan geedna waa suubi sidoo kale waxyaabahan sameeyay waxa kamid ah geedahan albaabka lagu sharaxo asagana doontan ka sameeyay insha Allah asagana waa idin la wadaagi doonaa haddii Allah awood la ii qadaro haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar si muuqaalada soo gelin doono ku dhaafin insha Allah kadibna gambaleelka furo haddii aad hore noola joogi jirtana like ta naga baqin insha Allah like ta noogu dadaal asxaabtaadan u sii share garee si muuqaalada dambe uga faa'iidaan insha Allah aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh